السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي وين وان السلام ميل كستا أدونك جوجتان باش يا برواقة دي رجيني أدونك ميل كستا كجوجتان صومالي وين قف كستو فيديو غير كو عصب يهي شيلات سبسكرايب وإنا تصارتان يعني رجيني شيلات سبسكرايب كعيس صار إن شاء الله قف كستو فيديو غير كو عصب يهي شير لايك سبسكرايب كوينا دي سارتان ان شاء الله باذن الله كريم. aan isla dhageysano gabadhii yareed oo lagu guursaday burco say dadka sheegayeen burco ay ahayd hadda ninkii la wareysanay wuxuu leeyahay gabadhu garoobeeba aheede waxaba horaa loo soo guursaday ilmay wadataa buu halka ka sheegayaa gabadha ayada iska lafa yar baan u malaynay saamaba uu yara bismillah kadib markii dhowaan ay iscalmadeen qoyskan Saabiriin iyo Sikaawe oo meherkoodu ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa baraha bulshada si weyn ugu faafay sawirada lamaanahan oo dhaliyay muran aad u badan taasi oo si weyn looga hadalhayay goobaha ay dadku isugu yimaadaan. haddaba telefishinka Home Cable waxa uu la kulmay caruuska Sikaawe isla markaana waraysi kooban oo aanu la yeelanay ayaa waxa uu dhignaa sida tan. waxaad ka warbixisaa Saabiriin iyo adigu xagga isku barateen ama iska hesheen? Saabiriin iyo anaga waxaan isku baranay meesha dadku iska bartaan WhatsApp-kan iska baranay. hadday garoob tahay okay way no problem anaga waxaan islahayn gabar horta waa iska laf yar tahay waxaan isla 12 jir ama ay tahay qiyaasta aan ku tilmaamay tolayba yaraan bay ku dhashay ninkana kolayba da'diisa ilaahay baa oo kolay hadda waxa lagu xisaabinayaa 40 jir kadibna adoo xiriir badan baan wada samaynay ilaa bil kadibna reaction aan ka samaynayna insha Allah adigu xiriirkaygu batay markii dambana dee calafaan isku yeelanay aniga Saabiriin. markaas barateen xaggee joogtay Saabiriin adigu si xaggaad joogtay? anigu Burcaan deganahay Saabiriin waxay degan tahay Ceerigaa bay degan tahay. hadda waan wada joognaa aniga Saabiriin. saameyn badan bay yeesheen sawirada gashaan adiga Ceerigaa reer buu guursaday لا معوير عيرقا بقى بلان دبو عليو الله انت عيرقا بيدق انت عيرقابو هذا هو ولا شغلنا aniga Saabiriin. saameyn badan bay yeesheen sawirada gashaan adiga Saabiriin dad badan waxay leeyihiin reer buu guursaday saki marka arintaas sidoo aragtaa adigu? aniga wala soo arkaa dee waxa weeye waa iska caadi waxa dhiba ma arko maadaama ay dadka ay isdhex yaacayaan wax dhiba walaal ma arko ma garatay. Sikaawe sawirka wada gashaan adiga xaaskaaga ayaa hadal hayntan fara badan la ka tii dee waxaan lii hadal hayo idinka social media soo dhigay qofkii sawirkiisa ama videogiisa social media soo dhigay maxaa la iga hadlayaa la dhihin ilaa idinka soo dhigay Soomaaliya runta marka qaarkood in runta la isu sheegaa wanaagsan qofkii videogiisa ama sawirkiisa soo dhigo social media desaasa loo kala dafaya saas Soomaalina mid kasta fiisun buraasana ilaa oo ceebteena asto kii ugu fiican ninka ugu fiican qofka ugu fiican dumar iyo ragba meesha waa laga buuxay qofka ugu fiican uu ka hadlay laakiin sawirada la soo dhigiyo iyo videoyada qaqaawan iyo ceebta dadka in la asturo aad buu fiican kuwan hadda maasha Allah dhibaato ma jirtee waxaan ka wada videoyada qaqaawan hadda aragtaan Soomaaliya in rag iyo dumarba horta waxa badan videoyada qaawan soo dhigo waxyaan ragga marka ragga Ilaahay ka cabsada hadda aragto video gabar qaawiyay ha soo dhigeen Ilaahay ka cabsada adigoo aamusana qofna u sheegin ka bixi ama faala ka bixin kartaa videoga sida qof sida soo dhigay laakiin ha soo dhigin yaa la arkin adiga meeshaada yaa laga daawanin ha sii faafinin afka waa ka hadli kartaa anagu bawaaka waan ka hadalnay oo daldalnay oo hadalnay faayima ka hadalnay tusmaan ka hadalnay waan hadlaynaa laakiin sawiro iyo waxba ma soo dhigno ceebta ragga ceeb male miya horta ragga sida ragga ceeb u leheen ragga gabdho Soomaaliyeed dhadhal walaasha maanta tasaa loo wadwad lahaa ma ku farxinay in case walaasha oo social media saa loo wadwado ma ku farxi lahayd ogo qof kasta gabdhaha la dhashay
rag iyo dumarkana meel ma kala jiraan waa hooyo iyo aabbo iyo walaalo iyo saas hooyo hadday jirina aabbo ma dhasheen aabba hadduu jirina hooyo ma dhalateen waa sidaas ilaahay baa isku keen asturay waa ina ceebaha la asturaa qofkii ceebaha dumarka ama gabdhaha asturi waayana dee hoostiisa ka dilaacay walaasha oo lasoo dhiga arki doonta habar wadaagta eedada habaryarta hal ceeb qofkii astura ilaahay 12 ceeb buu ku asturiya hal ceeb marka asturta 12 ceeb rabbi raxmaanka ku asturiya asla dhageysan marka dee ahaana way isku dhowdiin imika sida aad ugu sheegtay waana dadkii dee gayaanka ha iskursanaya batiin laakiin dad badan baa waxay ku leeyihiin dadka deegaan ahaan way isku dhow yihiin dhawaaha ceergaabo iyo burco waxaan u malayn anigu weligay ma arkine ceergaabo waaba meesheeniye waaba dhulkeeniye weligayna ma arkin soomaali weligay ma arkin ceergaabo halkaasaan kaa salaamaya ina adeer kulligeenba meel ma kala jirtaane oo hadda maxaan lahaa videogan kii ka horeeyay maxaan dhahay oodi ab ka dhow hadda wuxuu dhahay gabadha ceergaabay ka timaaday waa gabadh ka waran asagana waa reer burco waa 2 qabiil laakiin maxaa meesha ku jira oodi ab ka dhow oo qofkaagii qabiilkaagii hadduu meel fog jiro kana isku ooda tihiin baa qofkaaga ah videoga kan ka horeeya dhageyso insha allah waxaan ka hadlayana dhageyso haye aan sii wadno sheeko kale baan galay meesha waxaa soo gashay story cusub labadii isku waara isku baraara allah naga dhigo halkaas naga soo ducaynaya isku waara isku baraara allah naga dhigo ubad khayr qaba kala hela ma sha allah isku waara isku baraara sidii reerkooda loo celiyo yaa waxyaabo caynkaas ah aad waxa sheegtay in gabadhaadu guur hore soo martay bal arrinta faahfaahin kooban naga sii walaal horta gabadhan xaaskayga marwadeeda waxa weeye xaas hore way soo martay heer hore way soo martay ilmana way haysataa ilmaheeduna waa sanad iyo 4 bilood weeye wasaan uga sheegay marka horeba dee laba qofna iyagaa isdoorta ama ilmaha soo mara ama soo marin ama ha yaratay ama ha weynaatee laba qof iyagaa isku faraxsan ma garatay ma weyna gabadha yaraan bay ku guursatay wajigeeda laga garanaya oo waxay dadka social media saa ula daba ordaya waa gabar yar oo yaryaraan u dhalatay laakiin wajiga maasha allah way lafa yaryartay gaaban tahay laakiin qurux u dhimanayso gabadh dee heer soo martay oo maasha allah iyo dee dadkoodii siiyeen baan guursaday oo waxaan ku farxay maasha mar wareys laga qaaday waxaad sheegtay muuqaalkaaga waxaa ku jira marna 19 jir baan ahay marna 27 jir baan ahay saabirina 21 jir weeye hadalladaas tafsiisan bay dadku si weyn isu weydiinayaan labada da'ooda kala jaadka maxaad u sheegatay labada da'ood waxaa ku dhacday inanka muxuu ahaa markii hore muriye muu ahay inanka suurle ahaa oo dadka suuranta ka qaada anigu waxaan ku dhahay 27 baan ahay xaajiyadeedina waxa weeye 21 weeye mar labaad haddana igu soo celiyey anoo sheekooyin badan aan wadno ereygii haddana aan ku jawaab waxay 19 baan ahay sababtoo ah 19 waa musheeg waxaan ku leeyahay catcher baan ahay ma ahay muxuu ahaa waxba iga khalade anigu 27 qof kastana wuu arkay da'dii 27 tahay ma garatay dee qof kastana da'diisa laba qof iyaga isku faraxsan ma garatay waan bil rabaan ama waxaan dhihi lahaa shacabweynaha Soomaaliya wiilka maba weyne alla Soomaalidu social media dhib badanayay 27 gabadhana 21 waa yar yahay wiilka marka meeshan maxay ku soo qoreen 70 jir gabar yar guursaday 70 jir alla Soomaaliya social media was kula jirnaa laakiin waa la iga lagu dheer yahay balana ma goorma saa u gaari doona dadka saa warka saa u faafiya qof kasta wuxuu yahay sheega wiil gabadhana waa iska lafyar tahay laakiin dawaaba isu dhow yihiin bal eega 27 iyo 21 maxaa u dhaxeeya lix buu ka weyn yahay ilaa 30 ma ahaado 35 ma ahaado no problem ragga dumarkana dhowr iyo 22 meesha ugu fiican 22 ee ma leedahay maskaxdeeda alla ilaahay way isgaadhay 22 meelahaas ama 20 alla beentan wiilka laga sheegay bismillah wajigiisa laga arkay ma yar yahay dadka joogaan waxaan dhihi lahaa adduunka dibadda meel kastaba labada qof ayaan la isku
la isku mashquulay waa laga wanaagsan yahay ma garatay dadkan dhahaya muxuu ahaa uu ka weyn yahay xabuuqdeeda ku tuntay waa ina yaro 7 jir ama 8 jir qofna qof 7 jir ma guurto الله بسيكا ده gabadhii asagana waa nin dheer runtii dadkii sas baa ku dhacay de marna aanu garaabe social media aan marna u garaabe waxaa ku dhacay sas waxay arkeen nin dheer laakiin daada waxaa laga arkaa wejiga laga eega nin dheer iyo gabadh gaaban oo jilbaha u joogto way nahay ma garatay aniga sabrina waan isku faraxsanahay waan is jecelahay waan isku qanacsanahay ma garatay هلا لا دساي ميل دبي ما قرأتي ما شاء الله ما شاء الله ما قلت لك قايل باهيو مش يسقل دبر على باهي ما يسوران تبع عادي ما دام انا لقف عرفسن هنا انا اخذ هي سوران تدريك باهي oo de meelaha caadiga dadku ay dhigaan iska dhig anuna waa soo dhigay awaankay waan soo dhigtay taana dadku dhan baa soo dhigay macnaheedu waxyaaba ma landheera banaan dega weeyade sawradayda dhig buu yiri aan ku qanacsanahay dhig ana waan dhigayahay waa landheere banaan degay oo mees qarqaris lehen ama garatay waa hambaliyo ma garatay de aniga saambirina waan dad isku faraxsan baan ma garatay burco hor waxa la sheegay inaad qurbo joogay arintaas maxaa ka jira xageed soo ku noolad markii hore أنا مرت ورا شرم أنا كنولا نها هذانا هذا واحد جوابه دور بلود بان جوابه صابرين نها أول سكور سنة دكتور شيء شرف ليسين ولا لديد ده أنا كان عارف سنة ما قرأت شيء نها شيء شرفنا وان كله بدوني وأنا وكله بحنا وياشي وحده وان كله بحسني صابرين هذا وحاس كيجي وأنا كفر أحسن هاي صابرين dadkuna walaal waxa weeye wuxuun bay saawda dhigaya ma garatay guriga waa la dhisay meel dumiyo sikawe ma sha Allah wuxuu yiri guriga waa la dhisay meel dumiyo miskiin waan ka dhahay guriga waa la dhisay Soomaaliya dhageysta weelka uu yar yahay ma weyna weeg dhan baa lagu mashquulay ani hadda baan soo qabtay xaqiiqdina waan helay ma sha Allah waxayaan 27 jir jarmalka ka imaado yiri نكون ما وين وجهك سفي عنو سيجا قولي والد ساي لما دمي بيوري حتى السوشيال ميديا قايلة ده دكتور كدومو دم بيجا إسكالة دم بيجا إنتيجا شيء ما إسكالة وآخرنا كفكرة أدورم يانو كفكرة آخرنا كفكرة شيء لاك تسبسكرايب كلا يسار فيوس كده بديع فيوس كبديع بديع شيء لاك تسبسكرايب فيوس كاسل عقل جوه لا يدفك فيوس كأوبديع oo laagta badiya oo meel shishe gaarsiya wixii dambiya anakoo dhan Allah naga dhaaf kaladigay marwadaadaba dadka faafinaya daacayadaha ka dhanka reerka dhistay ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd ama aad ugu baaqi lahayd dadkaas horta dadka waxaan shacbiyanaha meel kasta ay joogaan dabadii gudaha waxa u sheegaya walaal inay dadka horta la dhigaan oo laba qof oo isuguursaday oo nolol wadaagay heer la dhisan maaha in la dumiyo waa laga wanaagsan yahay qof kasta horta Facebook uu raadaya oo qof wanaagaaga ka taliyay ma jiro anigu waxaan u soo jeedin lahaa go'aanka ugu dambeeya u soo jeedin lahaa in aniga Facebook ugu raadin weligeed baan laba weyn isguursan jiray ama laba yar isguursan jiray ama dad waa weyn isguursan jiray jawaabta aan sheegay waxa weeye in dadku muxuu aan la sheegin sida noo soo duceeyo bil rabadaanna waa lagu jira lamaanahan dhawaan iscalmaday saabiriin iyo sikawi saabiriin iyo sikawi magaciisa baba idilayba magaciisa idilay saabiriin iyo sikawi labada isku waara isku baraara Allah niga dhigo oo bad qeyr qabta Allah ni siiyo oo bad qeyr qabta وبد سعيدة الله نسيه وبد بالي ما شاء الله سأقول كوري الله نسيه هالكاسن همبليو كسورية وحجرتين صوما دوركي عضكم بكو جرات دوان هلي شاكدو اسكو دماتي صومالية شيء لاك تسبسكرايب كوردن كينا ملش شيء جارسيا صومالي ويني سيدا يا كلن تدنبئ وحيسا بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته